wararka ka imaanaya gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Boholgaras, Qooney, Daarusalaam iyo deegaanada hoos yimaado ayaa saaka degan kadib dagaalo maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen. dagaalkan ayaa u dhaxeeya ururka Al-Shabaab iyo beesha Faqi Maxamed oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan degmooyinka Boholgaras, Qooney iyo Daarusalaam ee gobolka Gedo. dagaalkan ayaa ka bilowday ururka Al-Shabaab kadib markii ay dileen nabadoon Mahad Cadar. dadka deegaanka ayaa dilkaasi ku noqday u qaadan waa oo aad iyo aad uga caroodeen. dagaalka ayaa ka qarxay deegaanka Xawaala Jiro, taasoo ururka Al-Shabaab isbuucyadii ugu dambeeyay ay ka dhigteen fariisimo. wararka aanu helayno waxa ay sheegayaan dagaalka inuu ku fiday deegaano hor leh oo ay ka mid yihiin deegaanada Maskiino Muuse iyo Taloon. mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka Boholgaras, Daarusalaam iyo Qooney ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya hubkii iyo saanadii loogu talagalay in cadowga looga difaaco gobolka Gedo inuu gacanta u galay hal beel. beeshaas oo ku heeb ah madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mas-uuliyiinta ayagoo hadalkooda sii wata arrinkaasi waxay ku tilmaameen musuqmaasuq heer sare gaaray. mas-uuliyiinta ayaa intaasi ku daray inay gacanta ku dhigeen maxaabiis fara badan oo ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, isla markaasna ay doonayaan inay mariyaan shareecada Islaamka. hase ahaatee waxay sheegeen inuu yahay waxa ay la dagaalamayaan cadowga waddanka Soomaaliya burburi ayna doonayaan in lala soo gaaro saanad military. waxay intaasi ku dareen dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadan lagu dagaalamay waxay galeen xaalad barakac ah, taasoo u baahan in lagu eego il bini'aadanimo oo gargaar degdeg ah lala soo gaaro. daawade la soco qeybaha dambe ee barnaamijka raadka dhacdooyinka.